السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كيني محي كولا تهي سؤال بردين ويدينيا وايو أما واكما قفكا أدونكا ugu xooga weyn ama ugu awooda weyn waa kuma talow. sheekada nebi Suleymaan calayhi salaam markuu majliskiisii uu la fadhiyay asxaabtiisa ama ciidankiisii ka koobnaa jinka iyo insiga iyo xawayaanka ayaa wuxuu ku yidhi ciidankiisa yaa ii keeni kara kursiga ama carshigii ku fadhido boqoradda Balqiis oo laga keenayo Yemen ama mamlakad Saba. taas uu doonayo inuu u muujiyo Balqiis intaanay soo gaadhin iyadoo ka soo socota Yemen awooduu leeyahay iyo xoog Ilaahay uu siiyey iyo sidoo Ilaahay ugu sakhiray jinka iyo insiga, taasoo muujinaysa inuu nebi uu yahay ama muujinaysa awoodda Ilaahay. markaasa majliskiisuna wuxuu ka bilaaban jiray salaada duhriga ilaa casarka. cifriid ama jin majliskiisa fadhiyay, cifriidkuna waxa weeyaan ka ugu xooga weyn jinka oo la idhaaho Dhakwaan. buugaagta cilmiga waxay sheegaysaa in cifriidka jinka la idhaaho Dhakwaan. kiiba yidhi anaa kuu keenay intaanad fadhigaagan ka kicin ama waqtigan u dhexeeya duhriga iyo casarka. oo taas uu qur'aankii uu sheegay. ilaahay qur'aanka suurat an-naml wuxuu ku idhi bismillaahi الرحمن الرحيم قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين صدق الله العظيم. ذكوان أما عفريت كاتشنكا wuxuu ku idhi anaa kuu keenaya weliba ilaalinaya oo jawaahirka ama dheemanka ku yaala kursigeeda oo inaanay daadanin anaa ka mas'uul ah. laakiin Suleymaan wuxuu ku idhi waxaan doonaya inuu isoo gaadho waqti ka horeeya duhriga iyo casarka inta u dhaxaysa. majliska Suleymaan waxa fadhiyay nin caadi ama bini aadam oo wasiir u ahaa Suleymaan, oo buugaagta cilmiga waxay sheegaysaa magaciisu inuu ahaa Aasif. kaas baa ku idhi anaa kuu keenaya intaanad indhahaaga aanad kor u qaadin. taas oo qur'aanku uu sheegay. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idhi suurat an-naml bismillaahi الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي صدق الله العظيم. wuxuu ku idhi intaanad indhaha kor u qaadin ayaan kuu keenayaa carshiga ama kursiga ay ku fadhido boqoradda Saba ee la idhaaho Balqiis. laakiin waxaa cajiibka ah waxa weeyaan masaafada u dhaxaysa ama safarka u dhaxeeya oo markaas uu joogay Suleymaan Shaam ayuu joogay dalka Shaam iyo Yemen ay joogto Balqiis. waqtiga u dhaxeeya ama lagu safri karaa waxa weeyaan 4 bilood, 2 bilood oo la tagayo iyo 2 bilood oo la soo noqonayo. haddana insaanka ama bini aadamka aan ahayn jinka wuxuu ku idhi waxaan kuu keenay intaanad indhaha kor u qaadin. tolo waa maxay awoodda Ilaahay uu siiyey bini aadamkaas iyo awooddiisu ay ka xoog weynaatay jinka. inaku ognahay oo qur'aanku dhowr jeer uu ku sheegay inay jinku ka xoog weyn bini aadamka. ilaahay markuu ka hadlayo xoogga markasta wuxuu horeysiiyaa jinka ayuu ka horeysiiyaa insiga. tolo waa maxay awoodda Ilaahay uu siiyey bini aadamkaas uu ka xoog weynaaday cifriidka jinka. buugaagta cilmigu waxay sheegaysaa inuu Aasif bin Barkhiya inuu ahaa nin ducadiisa la aqbalo oo wuxuu yaqaanay ismullaahi al-acdam, magaca Ilaahay ee weyn ayuu garanay ama cadiimka ah oo ducadiisa waa la aqbali jiray. haddaba bini aadamka adduunka ugu xooga weyn ee ugu bawarka weyn waxa weeyaan qofka markuu qamciisa kor u qaado ee Ilaahay u baryo ducadiisa laga aqbalo. nuux calayhi salaam daraadda ducadiisa markuu Ilaahay uu baryay daraadda ducadiisa ayaa adduunkan Ilaahay u rogay oo adduunkan uu qarqay markuu idhi bismillaahi الرحمن الرحيم فدعا ربه إني مغلوب فانتصر صدق الله العظيم. nebi Ibraahimna dabkii Ilaahay waa kii ka soo saaray markuu Ilaahay uu baryay ayuu Ilaahay dabkii ka soo saaray isagoo aan dabkii aan waxba yeelin. Ilaahay wuxuu yidhi qur'aanka bismillaahi الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله العظيم. haddaba
bin aadamka adduunka ugu xoogga weyn waxa weeyaan qofka ducadiisa laga aqbalo. sidaad u noqonaysa haddaba qof ducadiisa la aqbalo waxa weeyaan inaad amarka ilaahay aad ateecisid, dembiga iyo macsiyadan aad ka fogaatid, xaraantana inaanad cunin, salaadaadu iyo cibaadadaaduna khaalis u noqoto wejiga ilaahay. idinkuna maxay idinla tahay talow waayo qofka adduunka ugu xoogga weyn? waa mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.